ciyaaryahanka kubadda cagta ee Neymar ayaa ka jawaabay eedeymo uga soo hoyaday booliiska dalka Faransiiska. Eedeymahaas oo ahaa inuu gabadh aan weli magaceeda la shaacin kufsaday. Neymar oo hadda ku maqan dalka Baraasiil ayaa booliiska dalka Baraasiil ka warbixiyeen inuu ciyaaryahankani yahay eedeysane, waxaanay sheegeen in bishii May ee lasoo dhaafay 15keedii uu kala xidhiidhay baraha bulshada gabadh, halkaas oo kadib uu gabadhii u jaray tigidh hudheelna uga kareeyay magaalada Paris ee dalka Faransiiska oo uu markaa ku sugnaa. Waxay intaa raaciyeen in ciyaaryahan Neymar uu gaadhay hudheelkii gabadhu joogtay xilli uu cabsanaa maandooriyaha khamriga, islamarkaasna gabadhii ku bilaabay dagaal iyo kufsi. Dhanka kalena ciyaaryahan Neymar ayaa iska difaacay eedan, isagoo soo bandhigay fariimo isaga iyo gabadhani ku wada xidhiidheen oo ahaa dhinaca WhatsApp-ka. Fariimahaas oo uu sheegay inay caddeynayaan inaan wax aan lagu heshinin meesha ka dhicin. Kiiskan oo weli socda ayay iska kaashanayaan booliiska labada waddan ee Faransiiska iyo Brazil.